dalka Morocco waxa uu dhigay ama uu qoray taariikh ayna bini'aadanku ilaabi doonin. dalka Morocco waxa uu soo gudbay afar dhamaadka koobka adduunka ee finalka ee ka socda dalka Qatar. arrintu kubadda kaliya way dhaaftay, waxayna leedahay indho fara badan oo dhinacyo kala duwan laga eegayo. bulshooyinka caalamku waxay kubadda ku soo bandhigaan taariikhdooda iyo sidoo kale dhaqankooda, diintooda iyo sidoo kale wax walba oo caan ku yihiin gebi ahaanba bulshooyinka kubadda ciyaara ama dalalka hodanka ku ah kubadda. dalka Morocco waxa uu boodhka ka jafay taariikhda iyo quruxda islaamka ee soo jiidashada iyo haybadda leh. sidoo kale waxa uu baalaha ka jafay sharaftii Afrika iyo sharaftii Carabeed labadaba, iyo sidoo kale inuu noqdo dal ku dayasho leh. dalka Morocco marka laga yimaado inuu yahay dalkii ugu horreeyay Afrikaana ee wareeggan soo gaadha, haddana waxa ku duugan kubaddan la ciyaarayay arrimo fara badan oo dhinacyo kala duwan laga eega ay mudan tahay. waxaa mudan in waxyaabo badan laga hadlo oo ay kubaddani soo bandhigayso. sujuudda garoonka dhexdeeda, haddii aad arki jirtay hal laacib oo u sujuudaya Allah, haatan waxaad arki kartaa markay kubadda badiyaan xulka Morocco inay jamac dhan ay sujuudayaan. taa macnaheedu waa macno aad u ballaadhan runtii. dalka Morocco waxay haatan aad u faafay hashtaagyada dalkaasi iyo hambalyada loo diraya dalkaas. cid walba oo muslima ayaana ku farxaysa kubadda quruxda badan iyo soo bandhigitaanka, iyo sidoo kale maadaama Morocco ay tahay dal islaama ayaa keliya lagu taageerayaa cid walba, Soomaali, Turki iyo Carab kale iyo cid walba oo muslim ah. ma jirto wax naga khuseeya haddii uu ooyo iyo haddii uu ilmeeyaba Messi iyo sidoo kale Ronaldo, balse waxayna khuseeyaa in ay farxaan oo ay kubadda cagta ee sanadkan 2022 ka socda dalka Qatar ayba ku guulaysato xulka dalka Morocco. hadda waxay u soo gudubtay afar dhamaadka koobka adduunka ee 2022. dalalkaas ku soo hadhay ayaa ah dalal aad u kooban oo la filayo inay la dheeri doonaan maalmaha soo socda dalka Morocco. guulihii isxigxigay ee ay gaadheen xulka dalka Morocco, dad fara badan oo islaama iyo islaamka oo dhan ayaa ku faanay kuna farxay haybadda iyo quruxda dalkaasi Morocco. waxaa aad u faafay Morocco hambalyadeeda iyo bogaadinta loo soo dirayo cid walba oo muslima ay bogaadinayso. aad iyo aad ayaa loogu dabaaldegay. dadka qaar aan garanayninba kubadda aniga oo kale oo aan wax badan ka garanaynin ayaa markaasi aad iyo aad uga farxaya bal sida ay wax u socdaan iyo inta ay ku badinayso. kubaddu waa mucjiso soo bandhigta dhaqamo iyo sidoo kale xadaarado kala duwan. kubadda cagtu maanta ma aha wax naqas lagu buufiyey oo la eryanayo, laakiin waxay leedahay runtii haddaan ka hadalno wejiyo fara badan oo qurux iyo nooc walba iskugu jira. waddamada reer galbeedka laacibyada u ciyaara iyo kuwa kiristanka ah waxay soo bandhigaan dhaqamadooda iyo sidoo kale qaababkay u dhaqamaan shakhsi ahaan, dal ahaan iyo waxyaabuhu aaminsan yahay. laakiin aad iyo aad ayaan uga dambaynay dhinaca islaamka kubadda. sidaas awgeed markaad aragtay sujuuddan oo ay dhowr dhallinyaro ah halkan ama laacibiintii kubadda ciyaarayay sujuudeen, dad fara badan ayaa u fiirsanaya oo daafaha caalamka ka yimid oo daawanaya kubadda ka socota dalka Qatar. kadibna waxay baadhayaan bal waxyaabaha ku saabsan sujuuddan ay la dhacayaan laacibyadan reer Morocco ee la loodin waayey. kadibna dadkaasi waxay baadhayaan islaamka, waxayna ogaanayaan islaamka iyo waxa ka dambeeya wiilashan guulaystay. taas ayaana keenaysa suurtagalnimada inay dad fara badan qaataan diinta islaamka. dhammaan saxaafadda iyo sidoo kale qof walba ayaa ka hadlaya oo wax soo gudbiya dhinaca internetka oo aad iyo aad u hambalyeynaya hambalyo iyo bogaadina u diraya xulka dalka Morocco inay ku guulaystaan koobka adduunka ee sanadkan 2022.